الهمة العالية محيتها الهمة العالية علماء waxay ku qeexeen oo ay ku tacriifiyeen waa istisغار ما دون النهاية من معالي الأمور استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور qofku markuu arrin weyn inuu qaban karo oo horumar naftiisa uu gaarsiin karo bulshadana uu horumar gaarsiin karo wax ka bedeli karo markuu qalbiga ku qabto ka bacdi haddana waa inuu liido ama uu yaso caqabaadka ka hor imanayo dhan uu yidhaha waxba ma ah oo ka gudbi doona haddii yacni ahdaaftiisa uu isagu cabirtay cabirkaa fog wax ka hor imaanaya ama ka tashwiish gelinaya ama hamigiisa dilaya markuu arko inuu yidhaha waxba ma aha oo iska yaso caqabad walba soo wajahda inuu yidhaha waan ku guulaysan doonaa cabirka anigu noloshayda aan qabsaday waan ku guulaysan doonaa waa inuu yidhaah oo wax kastoo soo wajaha acdaa uu yeeshay cadawaa soo wajahay oo markaa doonaya in ay hamigiisa ay dilaan inuusan ahdaaftiisa ku guulaysan dad waxa isku dayaya caqabaad u dhigaya waa inuu yidhaha waxba ma aha waxaas ilaahay uu gaarsiin doonaa rabbi uu ku kalsoonaado subxaanahu wa tacaala caqliyadda ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala iyo mawaahibta ilaahay uu ugu deeqayna uu ku kalsoonaado markaa kabacdina uu aaminsan yahay caqabaadkan inuu ka gudbi doono waxbana aysan ahayn laakiin qofka hamigiisa uu liito waxaa lagu yaqaanaa waxaa taraanturin kara ahdaaftiisiina ka weecin kara oo ka leexin kara qof moosa qofkii u dhiga hal qof oo moosa qofkii u dhiga iska daa inuu caayo iska daa inuu dagaal ku qaado iska daa inuu weeraro qof moosa haddii loo dhigo bis sariirtuu jiifto bas wey kun cadawaad yeelata hal qof xataa hadday ka hor timaado wuxuu ka dhigi yacni yuqiimu dunya walaa yuqciduhaa adduunyadii oo dhan uu istaajinayo wuxuu leeyahay adduunka dhan ay igu kacsan bas wey waxba ma qaban karo marka hal qofaa maanta ka hor timid waxbaa laga sheegay ahdaaftii iyo cabirkii uu haystay ayaa laga hor yimid sidaasaa tahay iyo waxba ma qaban kartid iyo nin naacasaa tahay iyo mumayisaadkaas ma lihid iyo hal qofaa la hadlay bis yuqiimu dunya walaa yuqciduhaa adduunyadii oo dhan wuxuu ka dhigaa inay ku wada taagan tahay weligeedna ma fadhiisanayo adduunyada weligeed waa laygu kacsan yahi welig idan marka qofkaas waa qof hamigiisa uu aad u hooseeyo oo daciif ah oo lagu hantaa turin karo qof moosa haddii loo dhigo xataa bal iska dhaaf ciidan iyo cadow in lagu kiciyo iska dhaaf taasi marka waxay deliil u tahay qofka caqliyaddiisu uu xambaarsan yahay inaysan nadiif ahayn ay taasi tusin walidaalika ibn اljawsi raximah اllahu tacaala marka humuumtiisa uu ka hadlayay uu xambaarsan yahay xilligii cilmiga uu baran jiray ibn اljawsi wuxuu yidhi low qultu annii طaalactu 20,000 mujallad ma kana kahiiran fii awaani طalabii lilcilm haddii hadda aan idin idhaaho 20,000 oo mujallad ayaan cabir ka dhigtay inaan daalacdo xilligii cilmiga aan baranayay ma badnu yidhi wax badan ma ah 20,000 waan daalacdo yidhi ibnuljawsi 20,000 oo mujallad weliba sheekhu ma aha xilligii uu ku bislaaday cilmiga oo mudaris uu noqday waa xilligii dalabka uu ku jiray cabir waxaan ka dhigtu yidhi 20,000 oo mujallad inaan daalacdo hadafkaygiina waan ka xaqiijiyey oo waan ka run sheegay waa qofa maanta yacni nolosheenna dhan waxaa laga yaabaa 20,000 oo mujallad wax u dhow inaanan xaqiijin oo inaan taalacan oo qof walbaahi uu kitaabka waxaa laga yaabaa intuu sidan u kala bixiyo haddii mujalladaadkiisu ama safaxaadkiisu ay ku bataan oo uu yidhaaho safaxaadka kitaabka waa 200 oo beyj yaa waxaan qaban kara waxan yaa qaban kara dee waxan yaa qaban kara hadduu qofku ishor dhigay oo u dhammaatay waxay deliil u tahay caqliyaddiisu inaysan nadiif ahayn waxay deliil u tahay xataa ilaahay yacni inuusan awooddiisa iyo mawaahibta ilaahay uu siiyey inuusan xataa ku kalsoonayn maxaa yeelay marka la diraasaynaayo asbaab dacfi alhimma qofka muraalkiisa inuu jaban yahay maxaa tusinaya marka la diraasaynayo waxaa la yidhaahaa asbaabta waxaa lagu tiriyaa dacfu liimaan qof himmadiisu jaban tahay muraalkiisu jaban yahay noloshaada waxba kama bedeli kartid
ummaddaanna waxba kama bedeli kartid qofka aaminsan culimmadu waxay yidhaahaan waxaa ku jira dacfu liimaan iimaankiisaa daciif ah rabbiyuusan ku kalsoonayn subxaanahu wa tacaala maxaa yeele caalamkan waxaa iska leh rabbigaa iska leh subxaanahu wa tacaala waa facaalun limaa yuriid wuxuu doonuuna sameeyaa rabbi subxaanahu wa tacaala allana waa allihii yidhi ana cinda danni cabdii bi anigu mar walbaba addoonkayga waxa uu iga malaysanayo ayaan ahay marka maladaada maxaad u daciifina adigu maxaa luuqku geliyey maxaa hulku geliyey maxaa nolosha kaa riday ilaa hadduusan kugu jirin dacfuliimaan oo rabbi subxaanahu wa tacaala inuu intaas cabirkaaga iyo ahdaafta aad samaysatay inuu kuu xaqiijin karo haddii aadan yacni ku kalsoonayn rabbi subxaanahu wa tacaala walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa aaduu inoogu booriyey muraalka inaanu dhisno nabigeennuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi axaadiis fara badan ayuu nagu booriyey muraalkeenna inaan kor u qaadno oo mustawaheenna aanu kor u qaadno oo hammigeenna aanu ka dhigno hammi xidigaha maraya aan ka dhigno nin gabyaaya hadda ka hor wuxuu yidhi idaa maa kunta fii amrin maruumi falaa taqnac bima duuna الnujuumi idaa maa kunta fii amrin maruumi arrin haddii wuxuu yidhi aad niyeysanayso ood cabir samaysanayso falaa taqnac bimaa duuna الnujuumi xidigaha meel ka hoosaysa cabirkaagu yuusan noqon wey idaa maa kunta fii amrin maruumi falaa taqnac bima duuna الnujuumi cabir haddaad samaysanayso xidigaha meel ka sokaysa ha cabiran wey laakiin cabirka haddaad isku yarayso oo maalan adigoo taalibulcilmi aad tidhaahid lama baran karo naxwahan iyo luqadan wax la sheegayo iyo fiqhiga iyo kitaabka manhaajka oo aad safaxaadkiisu u badan yihiin oo weyn iyo tafaasiirtii iyo ummahaatu sita iyo intaas cabirkaygu ma gaari karee bal xoogaa abuushujaacley aan iska noqdo abuushujaacley aan iska noqdo safiintay abuushujaac aan isaga gaabsado manhaaj anigoo kale layguma talagelin dadka waaweynaa loogu talagalay maskaxdoodu furan tahay caqli adigiiyaaba isdilay adna siduu rabbi kula dhaqmaa subxaanahu wa tacaala ilaahay qalbigaaguu daalacanaa subxaanahu wa tacaala ana cinda danni cabdii bi haddii qofkii uu mujtamacan uu is yidhaaho wax ka bedel hadduu cabir meesha soo dhigo tillaabtaad qaaddo waa lagugu dili dugsi haddaad meeshan ka furto waayo dugsigan waxaa weye dad cadow ku aha degan xaafaddan ashma ah waa lagu dili meel kaleu haddana ka furi jiri midaa haddana ilaa shaydaanka naftiisa dacfulhimaha waa jeceliya qofka himmaddiisa daciifya aad uga faa'idaystaa waa jeceliya ilaa wuxuu rabaa shaydaanku inaan waxba la qaban waxba inaan la qabanuu rabaa meel kaleu haddana dugsi ka furi jiri shaydaanku qofuu marka u soo saaraa afkiisa ahdaaftii uu lahaa markaasuu qof inta ka hor yimaado wuxuu leeyahay maya meeshaanna qofaa joogta qofku u kacsanaa joogta meesha hay ma jirto bal guri aan iska galo hadde marka bis wey marka wax la qaban karo oo waddankan laga qaban karo iyo wax laga samayn karo haba yaraatee ma jiraan waa caqliyad aad u daciif u ah waa hami aad u liita walidaalika rabbi subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay qofka hamigiisa uu sarreeyo nabigeenna inoo sheegay salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi xadiiskii dabaraani uu warinayo khudbada hadda aanu ku bilaabanayno iftitaaxa oo weliba nuuruddiin alhaythami raximah اllahu tacaala kitaabkiisa majmacu zawaa'id uu isnaadka xadiiska ku taxsiiniyey ayuu nabigu wuxuu ku yidhi salى اllahu wasalam wbaaraka calayh in allaha yuxibu macaaliya alumuur wayakrahu safaasifaha ilaahay wuxuu jecel yahay macaaliya alumuur arrimaha sare in laga fekero ilaahay uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala marka hamiga sare waxbaad qaban kartaa ummadda waxaad noqon kartaa dadkeeda ugu horreeya awaa-ishaad noqon kartaa aakhirana kuwa ugu horreeyaad noqon doontaa biidni illaahi tacaala oo jannada gala dadaalna aad ku darto sidaas ilahay waa kugu jecel yahay subxaanahu wa tacaala waxaadna ku heli maxabbada ilaahay oo wax la mida aysan jirin maxabbada jacaylka ilaahay ayaa taa ku heli